halkan waa dhaanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah roob loo isku dayay inuu isbedel ku sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raagi iyo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Yaasiin Farey iyo Cali Guudlaawe iyo Cumar Finish oo taliyaasha isku beeliyihiin oo sheegay inaysan xitaa shirka ka qayb gali doonin haddii lagu soo hadal qaado miiska wada hadalka waxa ka bedel lagu sameeyo taliyaasha haddaba saameynta leeg ay arintaasi yeelan doontaa warkeena ayaad ku daawan doontaan waxaad sidoo kale daawan doontaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland oo markaan wareersan kadib markii Imaaraadka iyo ay isku dhacaan dalka Kenya ayna doonayaan inay ku gorgortamaan madaxa hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe dowladda federaalkana waxa ay sheegaysaa inuu dhamaaday waqtigii loogu talagalay Axmed Madoobe inuu hogaamiyo Jubbaland isla markaana ciidamo dheeriya ayaa loo dirayaa Kismaayo haddaba xaalkaasi sidoo noqon kara warkeena ay qayb ka tahay dowladdu maxay xoog u saaraysaa magaalada dekedda ee Kismaayo warkeena ay qayb ka tahay u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilownaa waxa muran ka taagan yahay qaabka isbedel loogu sameeyo arrimaha taliyaasha ciidamada gaar ahaan nabad sugidda iyo militariga oo hal beel ka soo wada jeeda waxa arintaasi si weyn u fashilay isla markaana fadeexada ka taagan banaanka soo dhigay Cali oo markaasi aad ula socday arrimahaasi waxuna sheegay inaan la aqbali karin arrimahaasi inay dhacaan sidoo kale hogaamiyaasha maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxay sheegeen arrintaasi inaan la aqbali karin haddii ay dhacdana ay shirka iskaga bixiyaan in ay garwaaqsadeen in amniga qaranku uu yahay mid dastuuri ah oo aan lagu bedeli karin teendada Afisyooni waa xaqiiq oo ay markaasi wajaheen raggii runta iyo riyada isku qalday balse shardiga ah in wax laga bedelo taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cornel Yaasiin Farey oo dhanka awood qaybsiga hal beel ka soo wada jeeda ayaa markaan waxa ay tahay arrin si weyn hadalka loo hadalhayo arrinta waa mid bartilmaameed iyo duulaan dana gaar ah lugta ku soo qaaday oo kii difaaci lahaa ayaa loo soo dhiibay oo waxa markaan ka shaqeynay in xilka laga qaado waa wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo si weyn loogu garan og yahay 30 milyan haysta marka laga soo tago Yaasiin Farey yahay kusimaha ku yimid heshiis siyaasadeed haddii uu ku baxayana waxa ay tahay in dhammaan intii la timid oo heshiiskaasi lagu leeshiiyay iyaguna ay baxaan haddana laga soo qaado halkii hore oo ay wax marayeen haddana dhanka kale waxa xujo taariikheed oo fac ka fac oli doonta in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay iska diideen in wax laga bedelo generaaladaas waxayna sheegeen in ay ku matalaan cid wax ka bedelaysan aysan jirin haddii ay yihiin beesha aan ka soo jeednay Abgaal ma jirto cid xilligan wax ka bedeli karta mana aqoonsan doono talaabooyinka ay wadaan xubnaha doonaya in taliyaashaasi wax laga bedelo ayaa laga soo xigtay labadaasi kaasi waxa ay muujisay in shirku uu layn kulul galay isla markaana dhinacyadu ay si adag isku weydaarsanayaan aragtidooda siyaasadeed iyo midda ku qotoma danaha siyaasadeed waxa sidoo kale banaanka timid arrin u baahan in markaasi miiska wada hadalka la keeno oo ku aadan qadiyada doorashooyinka taasina waxay u muuqataa arrin dhinacyadu ay si adag uga soo horjeedaan isla markaana abuuri doonta in jawi wada hadal isqancina lagu xalliyo taas oo muhiim u ah xaaladda gobolka iyo istiraatiijiyadda dad badan ayaa fahamsan in la gaaray xilliga wax laga qaba lahaa qorshaha lagu hormarinayo dadaalada wax ku halka lagu dhisayo dowladnimada taasina waxay la mid tahay qorshayaal dhowr oo sanadihii la soo dhaafay soo socday ka oo lagu hagaajinayo qorshaha dowladnimada sidoo kale kor loogu qaadayay qadiyadaha lagu dhisayo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo tan iyo markii uu mucaaradka si toos ugu biiray isla markaana la taliyaashiisa uu ka dhigtay xubno ay ku jiraan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa soo baxayay qalalaasaha iskhilaafka iyo dhibaatooyinka iyo sidoo kale caqabadaha ka taagan hanaanka doorashooyinka balse haatan waxay u baahan tahay in si wada jira arrintaasi loo samata bixiyo dad badan ayaa fahamsan in la gaaray xilligii qorshuhu ahaa in kor loo qaado nabadgelyada istiraatiijiyadda iyo dadaalka loogu jiro dowlad dhisidda taasina muhiim ay u ahayd xaaladda gobolka